mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaana la socotaan tabintayadii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o ismaaciil intaan barnaamij dhegeystayaasha usoo gudbin barnaamijkan farahaad ku haysay waxaa la yidhi telefoon baa soo dhacay waxaa la yidhi maalmahana dee baraha isgaadhsiinta bulshada ayaa sheeko ka bilaabantay waxay ku saabsanayd fariimo laysu dirayo lalahaa in tasawir madow lasoo saaro telefoon lamber gaano laga yaabo ama dalalka afrika ah lasoo raaciyey haddaad telefoonkaasi kusoo garaaco aad qabatid waxyeelaa kusoo gaadhaysa marka waxyeelada ma la fasira dhimasho kala ka mid ahayd waxaa dhacday markaa sheekadii baraha isgaadhsiinta bulshada ku koobnayd waxay gaadhay nolosha caadiga ahayd magaalooyinkii bay gaadhay waa gartay magaalooyinkooba sahaalay miyadii bay gaadhay oon telefoon iyo aan aad wax badan looga fahansanay miyadii markay gaadhay xitaa waxaa dhacday tusaale ahaan dad dhiikar qaboo kale ayaa lasoo wacay gabadh oo kale la wacay oo kale markaa dhiikarkii waa ku kacay way naxday naxdintiibaa dhiiggeedii kacay calashaan waa lagu soo wacay waa lagu helabaystiri marka dad badan baa markaa arrintii baa run u ekaatay telefoonaa la tuuray maxaa la odhan jiray qaar baa teleefoonadeedii jejebiyey run baa arrintii loo qaatay waa tahay dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka sidaad maqlaysaana toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa ma dhici kartaa in qof waxyeelo lasoo gaarsiiyo iyada oo telefoonka loo dhex marayo marka arrintaas waa la beeniyey caashay waata barnaamijka uga bogan doonaan qodobkaasi iyo qodobo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa dhalinyaro madadaalo ku sameeya dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada ayaa fariimo ay sameeyeen waxa ay saamayn ku yeesheen habnololeedkii qaybo badan oo ka mid ah bulshada soomaalida kadib markii dad badan telefoonnadooda gacanta ay isku weydaarsadeen fariimo sheegaya in haddii laga jawaabo telefoon lambarkiisa la tilmaamay qofkaasi uu dhimanayo waxaana soo baxay warar badan oo sheegaya in dad badani ay waxyeello ka soo gaadhay kadib markii ay telefoonna ka jawaabeen arrintaasi run ma tahay mise maaha waxaa barnaamijka marti ku ah qaar ka mid a dhallinyaradii ugu horraysay ee fikraddani ay ka timi oo iyaga laftigoodu leh warkani warsal iyo raadtoonna ah maaha ee farriimo u badnaa madadaalo iyaga dhex marayey ayaa gacmo khaldani ay si khaldan u tarjumeen oo bulshada ku dhex faafiyeen sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ah cabdinaasir soola oo aqoon durugsan u leh dhinaca farsamada isgaadhsiinta bulshada haatanna macallinka ah dalka britain wuxuu isaga laftigiisu beeninayaa in ay jiri kartoba in telefoon qof lagu dhex dilo iyada oo farriimo loo dirayo sidoo kalena hargeysa waxaa ku sugan hibaaq gamuute oo iyana saamaynta arrintaas ka dhalatay ka hadlaysa hibaaq waxay agaasimo ka tahay xarunta daraasaadka siyaasiga ah ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa ee c b a marka hore kusoo dhowaada waa soo dhownahay maalin wanaagsan waxaan ka bilaabayaa cabdinaasir waxaa jirta waad aragtay dabcan qoraallo waad ka soo qortay dhowaanahan waxaa shabakadaha isgaadhsiinta iyo noloshii caadiga ahaydba ku batay telefoon lambarkiisu intaa yahay haddii aad wacdid waad dhimanaysaa waxbaa kusoo gaadhaya warkaa barlota farsamo ahaan suuragal ma tahay ugu horeyn waa aad ayaad umahadsan tahay ismaaciil iyo dhammaan voice of america waxaan kaloo salaamaya cabdi tahliil oo stockholm jooga oo samarkii aan ka joognay iyo hibaaq oo hargeysa joogta maya haddii aan kaga jawaabo si toosa waa maya luqada ingiriiska waxaa la yidhahdaa defying logic of physics logic of physics ma noqon karto logic physics waxyaalaha ka hor imaada waxay yihiin cilmiga haddii loo eego marka waxaa la yidhi telefoonka 2-3-6-5-4-9 5 ayaa lagu soo wacayaa kadibna dhiig baa lagaa dhowqayaa shaydaan ama waad ku imanaysaa waa physics logigiisu wuxuu ku samaynaya ka hortag ama define wax dhici kara maaha wax jirana maaha marka farsamada casriga marka la eego iyo aqoonta intaad u leedahay wax teknolojiyadda saa la isugu dhex mari karo intaad dee lamber ama sidii doonaha lagu soo wacee waxyeelo lagu gaadhsiin karaa ma jirta laba arrin ayaa jirta tabcan waxaa dhacday arrintan technolojiyada la yidhi waa maaragtay waa lagu samayn karaa in qof lagu dilo isagoo meel kala joogo waa wax dhici kara ma aha waxa keliya ugu soo dhow waxay ahayd waxa keliya aan ku dhamay waxa keliya ugu soo dhow waxay ahayd dhowr sano ka hor jaamacad ku taala california oo dhanka technolojiyada inay yidhaahdeen 25 sano hadda ka bacdiya waxaa laga yaabaa carafka barfuunka inaan soo dulmarino mobile phoneka ay yidhahdeen taasna waa
weli waqti baa ka haray laakiin tan iminka telefoonka wax dhici kara ma aha dhanka fiisikada. waan gartay cabdi tahliil dhinaca majaajilada caan aada ugu tahay arrinta laftigaaga waad ka hadashay oo dhinaca shabakadaha isgaadhsiinta adiga iyo mid wiil ka mid a saaxiibada bal arrintan madadaalo ma tahay ka dhex socotaa baraha isgaadhsiinta bulshada oo u gudubtay noloshii caadiga ahayd? waxa weeya ku dhahay wax shaksiyaad ay soo abaabusheen mafahamtay waan gartay yani oo loo malaynayo horta inay faafayaan laakiin si kedis ah wax ku faafeen saacado gudood. maxaad ula jeedaa marka wax lasoo abaabulay ama dad sawir yar naga siisid? yani lambarkii la sheegaayo la dhahayo waa lagu dhimanaya mafahamtay ha yani wax oo lasoo abaabulay oo bulshada laga dhaadhiciyey oo whatsappyada loogu diray gruubyada kadibna ayaga ay faafiyeen waa mafahamtay. marka adigu lambarkaa ma wacdoo kale shaksiyan? lambarkaas yani anaga maba wacan boy dadkii yani oo waxaa kamid ahayn soomaha dadkii yani abaabulay afaarahan mafahamtay. adaaba abaabulay? aniga iyo yarkii la joogo saaxiibkay inwaa bircadde iyo annagaa ka dambeeyna mafahamtay. haye marka waxaan uma malaynayninba horta wax oo faafayo laakiin dibaa uga shalaynay markiina la dhahay waalidiin badanaa teleefanadooda qaban waayey dad badanaa yani ku kala go-ay xataa waxaa la sheegay waalidiin qaar ilmahooda telefonka ka qaban waayeen wadamada dheer kala jiraan mafahamtay. waan gartay marka idinku madadaala u samayseen marka hore? annaga yani waa iska qorna mafahamtay fikradde adigi waxba adig kugu soo dhacay mar haddii aa wada sheekeysa in laba qof adaatiye. marka idinkun baa marka hore isugu talagalay? annagaa qornay marka dad qaar waxaa arkayna hataa sheeganaya lambarka laakiin waxa waaye sadar muuqda su-aalka dhan. waan gartay waan kuusoo noqonayaa khadkaigu jir bal waxaan tegi doonaa hibaaq gamute oo hargeysa joogta. hibaaqay saameyn noocaaba bulshada ku yeelatay bal arrimahan mararka qaar iyada oo laga yaabo inaanay jirin aad bulshada loogu qaybiyo iyadoo fariimo ah iyo saameynta ka dhalata? horta runtii saameyn badan bay ku yeelatay arrintan dadka oo dadkii baqasho ayay ku abuurtay. dadka qaar xataa waxaa jira inay telefoonadii ka baqdaan oo marka telefonkii lasoo garaaca ay idhahdaan waxana soo garaac tuuraanba telefoonka gediisii oo ay idhahdaan waxana soo garaacay wixii dadka garaacayay dadna xataa aamiya inay gargariirinayaan oo ay dhibaata ku dhacday. dadka qaar laftirkooda sidoo kale waxaa xataa saameyn ku yeelatay carruurta iskuullada oo marka iskuullada ay tegeen ayaa waxay dhahan iyagoo yaacay intay maadin la idhahda jira telefoon dadka laga soo wacay oo lagu dhimanayo dadka teleefonada ha qabanin ay dhahdaan iyaguna iyagoo qaadinaya runtii adigaxiyo saameyn weyn ba ku abuurtay dadkii wata heerka gaadhi daliska qaaraaminaan bayna dhimanta teleefonada qabtaan. waan gartay adigu ma lagu soo wacay mara? aniga meelma lama soo wacin runtii oo de wax kasiiga umaama arkay aniga social mediahana waan ka arkay laakiin tii ugu daran waxaa markii iyaalkii iskuulka ka yimid iyagoo yaacay ay yimaadeen ay yidhahdeen telefoonkaad ku qaban dad muxuu hadii kale dadku waad ku dhimanaysaa telefoon baa kusoo garaacaya. haye xataa iyaga ay igu adkaatay inaan ka dhaadhiciyo in arrintaasi been tahay marka marka dambe xataa waxay gaarina heer ay gaareen yidhahdaan adigaan waxba ogeyn telefoonkan aad ku qaban yaanad dhimanayna. waan gartay laakiin sida kale aniga lama soo garaacin. laakiin adiga maxaas leedahay bay ugu wacan tahay in dadku aaminaan telefoon inta lagu soo garaaco lambarka caadiga ahaa inaad magaranaysa waxyeelo lagu soo gaadhsiin karo? horta inka dhibaata jirta odanaysa bulshada waxay yaraatay kafiirsiga waxay u fiirsanayeen social media markay noqday waxyaabaha keliya runtii iminka wax walba laga faafin karo haddii labada midin laba afle weeyaan wax walba loosoo isticmaali karo oo mararka qaar wax wanaagsan laga sheego wixii wanaagsanaa waa faafaya wixii muxuu xataa xumaado ku faafayaa si xawli ka badan sidii hore ka faafi jireen. marka arrinta ay keentay arrinta marka weyn dadka iyago waxba ka fiirsanaynin oo aan isweydiininba waxaan ma runba ma beenba waxata aan raadinaynin inay tixraac helaan waxana huli waayeen kale marka sidan yar degdega ay u qaadanayaan muxuu ahay waxaan loo sheegayo taasaa keenaysa markaas inay markiiba waxan isay ugu faafo marka dambana ay keento cabsidan. waan gartay anoo cabdi tahliil ku noqon doona marka hore aan cabdinaasir solo ku noqon. cabdinaasir waad maqashaa arrintu iska faaftay kaftan baa laga yaabaa iyadoo dee waxyaaba badan oo laga yaabo adigu inaad dee iska qoratid baa laga yaaba dad kale inay si kale usii faafiyaan heerkaana ay gaadho. maxaad is leedahay sidan degdega ugu faaftay? dabcan hadda waxaa jira social media ayaa jira baraha facebooka instagramka whatsappka wax walba maaragtay dadkan way kala duwan yihiin dabcan dhalinyaro ayaa u badan. wiilashan aniga waxaan kula kulmay sweden waa rag iska dhalinyaro oo iska hasaawo jecel iska heesa waxyaala badan sameeya laakiin waxaan ismaaciil ma ahan wax hadda bilowday ma ahan. markii ugu horeysay bishii april 2017 iyo waddanka bakistan saan oo kale telefono oo 9 ka bilowda la yidhi haddii aad qabatid cancer baa kugu dhacaya haddii aad samaysid. markii dambe xitaa waxay usoo gudubtay waddanka masr ayay usoo gudubtay oo la yidhi qofkii messageka ka jawaaba waxa ku dhiig buu matagaya hore ayuu ka dhimanaya. wiilashii ka dambeeyey markii dambe xitaa waa la xiray oo maxkamad baa waqti dheer lagu xukumay. laakiin ra'yigan ah telefoonkan laisku dilo
dhalinyarada waxay ka arkeen film maraykan ah oo la sameeyey 1972 la yidhaahdo murder by phone, qof lagu dilay telephone. qof baa telephone kuusoo diraya, marka kuusoo diro indhahaga iyo dhagaha dhiiga ayaa ka imaanaya, isla markii waa dhimanaysa. marka shabakada ayuu ku jiraa solarportal.com aan kusoo qoray qoraalka. waxa keenaya oo sidan u faafiyey runtii waxaan dhihi karaa ma dhihi karo aqli xumo iyo wax garaad la-aan baa keenta, ma dhihi karo. sababtoo waxyaabaha ugu yaabka badan waxay ahayn dad badan ayaa la soo xiriiray, dad jaamacad dhigta ardayda kamid ah baa ila soo xiriiray. waxay yidhahdeen macalin arrintan bal ka waran. marka xoogaa yaab bay la noqotay, arrintu aad bay u fiday. waxaana kasii daray dhalinyaro sameeyey video intay wax dhiig u eg oo maaragtay jeenkidan lacag oo kale intay ku daadiyeen funaanada cad ay yidhahdeen qofkan baa hadda telefoonkii qabtay, nafta ka baxday. iyo wiil kaloo hargeysa bartay nin istaaganoo nin live ka dubay, nin maaragtay meesha istaagan oo yiri hadda igu dhacday. marka arrimaha waxay u dhacayaan qaabkan. haddii hadda la yidhaahdo telefoonka haddii aad qabatid waxbaa kugu dhacayo, aan ka walwalsanahay haddii aan ahay qof oo maaragtay kaadimacaan qaba ama dhiig karka aan qaba aan ahay, waxaa dhacaya in qalbigayga waxa ku jiray oo la ii sheegay iyo kan aan isu kaashado, kadibna arrintii dhanka psychologyga madaxa iga gasho ay damage gaarsiiso, markaasna aan ku suuxo. way dhici kartaa, qof way ku dhici kartaa. laakiin tan la yiri telefoonka wax kuu samaynayo waa 5,000 waa waxba kama jiraan. waan gartay. marka aynu eegno ma is odhan kartaa arrintani waxay su-aal badan gelinaysaa heerka wacyigelinta ee bulshadeenna, haddii tusaale ahaan dee war aan sugnayn oo xitaa qofna aanu isweydiinayn say run u ahaanayso uu iska aaminayo oo isagii isku abuurayo dhibaato. laga yaabo dhibaatada inaan dibadda uga iman, laakiin dhibaatada ugu badan ku abuuraysa waxa cabsida isagoo isku abuuray. ismaaciilow, bani aadamka maskaxdiisa waxay u shaqaysaa qaab ah qofka waxa uu doonay keliya iyuu arkaa. tusaale ahaan hadda marka la yidhi telefoonkan dadku wuu dilaa, marka la yidhi qofka waxaa rabaa inuu fadhiisto uu yidhaahdo taasi ma dhici karto, logic ma ahan. adduunka physics baa lagu shaqaystaa, dayax gacmeedka wax wada, diyaaradaha wax wada. marka logic ma ahan qofka inuu yidhaahdo u fadhiisto. laakiin hadda waxaanba dareemayba 80% dadku inay rumaysteen, intooda badan ay yidhaahdeen war waxani waa run. anigaaba qof aad yiri anagaa soo aasnay galabta. qof waa laga yaaba inuu soo aasay, waxaa laga yaaba qofka telefoon isagoo ku hayo inuu wadkii u yimaaday ama wadnaha uu garaacay ama wax kale ku dhaceen uu dhintay. waa laga yaaba telefoon markuu usoo dhacay. waxaa laga yaaba telefoon ka bilowday eber 23 uu soo dhaco ku dhintay. laakiin waxaa la yidhahdaa waa coincidence, way isku soo aaday. laakiin arrinta ah in qof walba u rumayso, teeda kale ingiriisku wuxuu yidhahdaa beenta haddii la badiyo rumayso ku dhaysaa. waan gartay. cabdi haliil baan ku noqon. cabdi haliil waad aragtaayo dee arrintii waa iska fiday, dad baa si kale u adeegsaday. wax dee majaajilooyo inaad dee idinku isticmaashaan iyo dee idinku koobnaato ay ahayd baa dad kale intay isticmaaleen, qaarkood sawirro sameeyeen, ay bedeleen, meelo badan baa la gaadhsiiyey, saameyn baa ka dhalatay. maxaad sideedood imika u aragtaa sidanay wax u socdaan? horta dadkeen horta hal mid baa isaga qaldan, mafahamtay? haye yacni waxaan horta dadaa waxaa lagu leeyahay wiil baa Jarmal ku dhintay. wiilka Jarmalka ku dhintay waxaa waaye lambarkan oo keliya oo lambarka in Afrika laga leeyahay horta waa loo jeedaa, mafahamtay? haye lambarka keliya Soomaaliga, qofka Soomaaliga ah keliya soo beegsanayo oo qofka kale cadaanka ah soo aadeen Jarmal. intaasoo qof ay joogto, intaasoo qoomiyada joogaan oo afka umeena. haye marka qofka Soomaaliya keliya, qof walba Soomaaliya wuxuu ku leeyahay anuu isoo wacay. qof walba oo maxaa la dhahay dad waaweyn xataa waxaa arkaysa dad waaweyn oo ku dhaaranayaba anigoo isoo wacay video call ay isoo wacay midooga. marka ani arrintaa waxaa u arkaa waxaa sababay inay yani sii faafto dhimashada oo agteena raqiiska ah, masalan. haye lambarka idinku cidna ma wacdeen? lambarka waxaa laga leeyahay Ghana, masalan. haye lambarkana maba ahanba lambar ku shaqeynayo, caadi loo wici karo ma ahan. marka lambarkan lambar shaqeynaya ma aha? lambar shaqeynayo maba ahanba. dadaa ku leh wuu isoo wacay, dadaa ku leh WhatsApp ku jiraa. WhatsAppna ma lahan, Fiberna ma lahan, meel uu leeyahay ma lahan, masalan. waan gartay. idinku sidee baa ku keenteen arrintan? annaga waxaa waaye yani waxaan wax laysku aadiyi waayo, wax maxaa la dhahay propaganda oo fahmi kartiin oo malena. haye marka yani dadkan inay iska dhaadhiciyaan waxyaalahaas kale waa laga fiican yahay. marka idinka adig iyo ina waabiro kale markaad iska kaftamayseen oo kale fikirkan sidee buu idinku dhashay inaa idinku iska fikirtaan wax noocana ka fikirtaan marka koowaad? waxaa waaye horta yani waxaan tijaabinaynay adiga waxbaa isku qabsanay ereygaana sameynaa waa kora markaas waxaan dhahay miyo meel kuma gaarayo, masalan. haye yani inaad iska dhaafto ku fiican. adiga waa arki doontaa oo dhahay cabaar kadib waxaa arkay waa anigoo liisoo diraayo. adiga lagu soo diray? ha haye marka meesha ugu dambeysana waxaa waaye waa idaacadda digtoonow
ku qora meesha qofki inuu yacni qoraalada waa akrisaya umaleynaa iska ilaali lambarkaas markii lagu dhaho oo waxaa fariintaa kaa soo gaartaa lagu leeyahay idaacadda digtoonow marka yacni inay barabagaando tahay meesha ugu dambeysaa laga dareemi karaa. waan gartay maxaa dadka u sheegi lahayd markaa dadkan iminka aaminay waxaana inay run yihiin maxaad u sheegi lahayd? waxaa u sheegi lahaa dadka waxaa niyadda inay ka saaraan waa been yihiin. waxaa waaye annaga hindi maana horta hindiya waxyaalahan jilaan fahmi haye marka waxyaalahan niyaddaha laga saaro wax jira ma ahan. dadaa qaar waxay leeyihiin malakamoodkiya lambar soo qaata. waan kusoo noqon doonaa gebagabada cabditahlil aan u noqdo hibaaq baan u tegayaa. hibaaqii waad maqashaa sida wax u socdaan. cabditahlil waa kasawir naga sii wuxuu yidhi dee arrintan kaftan iyo wax annaga oo nagu kooban iyo meelahanunba iska ahayd oo dee waa tishaar kale loo geliy annaga oo naloo soo diro nalaleeyahay ka digtiro xataa annagii oo nalaleeyahay iska ilaaliya. marka maxaad xal u arki lahayd bal markaad eegtid waaqaca bulshada say wax u socdaan maxaad talo ama sida wax u arki lahayd? runtii horta waxaan oo dhan waxa sababaya waxa weeyaan dadku way samaysan karaan waxyaabaha isaga ciyaaraan ama waxyaabaha isku madadaadiyaan, laakiin dhibaatadu waxa weeyaan xawligan uu ufaafayo waxaan oo marka uu meel kasta baxa uu ummadii oo dhan u gaarayo. waxaana waxa ugu badan ee sababaya waxa weeyaan waa barahan bulshada oo iyagu wixii lasoo dhigo markiiba ay dunida ku faafayso. marka waxaan leenahay horta waxyaabaha noocaas ee ciyaarta ku bilaabmaya maadaama dunida aanay dunidii hore ahayn oo la isticmaalayo muxuu ahaye bari bulshada la isticmaalayo markiiba wixii meel laga yidhahdo waa adduunka oo dhan gaarayo in horta muxuu ahaye wixii kaftana aan muxuu lagu isticmaalin baraha bulshada oo aad dadku ay mas-uuliyad isa saaraan oo ay ilaaliyaan. waxyaabahaas waa ay saameynba ku yeelan karaan sida iminkuba dadkii saameyn ay ugu yeelatay. taas horta waa xilka koobaad ee ay tahay inay muxuu dadku ay mas-uuliyad isa saaraan oo aan muxuu ahaye wixii ciyaaro laga saaro oo aan lagu faafin baraha bulshada. taasaan waa horta inay xilka koobaad tahay. tan labaad waxa weeyaan waxaa leenahay dadkii iyo bulshada ay cabsidu gashay maadaama dhalinyaradu waxaa sameeya idiin sheegayaan wixii waa inay waadin wixii waxba kama jiraan yahay. sidoo kalena wax wal oo baraha bulshada lagu faafiyana aan iyaguna degdeg u rumaysanaya tahayna ka fiirsadaan. waan gartay in la isweydiiyo ugu yaraan waxaan ma runbaa mise maaha caqliga bini aadamka la adeegsado absolute in caqliga lala kaashado oo la isweydiiyo waxaan run miyuu yahay mise waxaan waa wax la iska ciyaarayo. socialkana runtii aad iyo aad loo ilaaliyo maadaama iminka saameyn badan oo ku yeelanayo dunida oo xataa ay dhici karta in wadan dhan laga rogi karo baraha bulshada. dadku waa inay mas-uuliyad isa saaraan taasaa ugu muhiimsan. waan gartay cabdinaasir waad maqashaa bal maxaad is odhan lahayd fariintaada ugu dambaysaa xalla way noqon lahayd dadkan waad u sheegi lahayd? wallahi horta runtii labada ra'yi iyo hadallada ay ka dhawaajiyeen hibaaq iyo cabditahlil waa maqlay. dabcan cabditahlil waa wiil dhalinyar ah isaga iyo ina waa beri waxaan isku soo baranay sanadkan. waxaan runtii horta aada ugu ammaanayaa dhanka hiddaha iyo dhaqanka waxyaaba waxay keenaan ogow dhalinyaradan 20 jir weli ma gaarin marka waxay keenaan waxyaala maaragtay dhalinta fan u ah laakiin hal mid bay iloobeen hadalkoodu meel dheer buu gaaray ismaaciil. qofka hadduu hadalkiisa meel dheer uu gaaro maaragtay haddii waxyaabaha ay kaftan ay ka yihiin waxaa laga yaabaa dhibaato aada u weyn inuu keeno sidaan hadda ka maqalnay hibaaq iyo cabditahlil laftigiisaan ka maqalnay. marka waxaa loo baahan yahay markii aad mas-uulta hadda waxaan dhihi karaa wiilashu waa mas-uul sababto oo intaasoo boqolaal oo kun oo dhalinyaro ayaa dhegaysata waan arkay anigu xataa waan daawadaa video iyo heesaha ay soo duubaan iyo maaweelada ay soo duubaan waan daawadaa. marka mar walba waa in mas-uuliyad ay la socotaa waxyaabahana kala la sameynaya. anigoo kale hadda tusaale ahaan waad og tahay arday badan baa waxbaran maanta haddii aan idhaahdo maaragtay waxaas baa dhacay waxaa laga yaabaa 100% inay leeyihiin waan rumaysan karnaa macalinka ka maqlinaya. laakiin aan kaa dhex galo aan kaa yar dhex galo laakiin waxaa jira haddeer tusaale ahaan madadaalada haddeer dunidan reer galbeedka waynu naqaanaa madadaalada qofku madadaalada wuxuu dadka kaga qoslisiiyuu sameeyaa laakiin waa inay ku koobnaataa xayndaabka madadaalada oo aanay ka bixin oo ma laga yaaba dad badan inay wixii tusaale ahaan madadaalada ahaa ay u gudbinayaan xayndaab aan loogu talagelino. tabcan waa runta wiilasha markii ay samaynayeen waxyaaba badan bay sameyn uguma talagelin dad baad maaragtay wax ku yeelaysaan ama halkan bay sii gaaraysaa ilaa dawladihii ay ka hadlaan. marka waxaan waxay noqdaan waxa la yidhahda luqada ingiriiska viral bay noqdaan. viral hadday noqdaan way ku dhamaatay. waxaan xasuustaa 2013 gabar Maraykan ah baa waxay tiri anoo naas nuujinaya wiilkayga dhashay ba waxay soo wacay taxi ii soo diray 30 jeer shaydaan bay tiri. markaasaa la yidhi war sidee kogta inuu shaydaanka laftigiisa ahaa numberku wuxuu yidhi lix ayuu ka bilowday ayuu ahaa. marka sheekadii viral bay noqotay. markii dambe dadka intooda badan waxaas ma aaminaan laakiin muhiimaddu waxay tahay dadka in ay eegaan logica wax la yidhaahdo ama wax aqligalka ah inay eegaan. waxaa jira aqligal ah iyo waxaan aqligal ahayn ayaa jira. haddii aad ku aragtaan wax maaragtay maaweelo ah oo dadku ay ku sheekaysanayaan lumiska kuwaas waa maaweelo. laakiin wixii haddii lagu yidhahdo telefoon baa qof kuu soo diray waad ku dhimanaysaa
anigu markii ugu horreysoo la iisoo diray qof iisoo diray waan iska yara qosay, waxaan mooday comedy baan mooday, waxaan mooday haasaa waan mooday. waan gartay. laakiin sheekadu markay isbedeshay waxaa qasab igu noqotay inaan portalka shabakada anglosolarport.com aan qoraal dheer aan kusoo qoro. marka dambena dad ay yidhahdeen hadda sheekadu waa fahmay. laakiin arrimahan ilaa iyo hadda iminkan aan barnaamijka aan samaynayno Ismaaciil way socdaan. dadba waxayba leeyihiin anaaba soo aasay oo qofkii u dhintay anaa soo aasay. waan gartay. arrimahaas waxaa la doonayaa in la iska ilaaliyo. waan gartay. waxaan u tegayaa gabagabada cabditaalilow, dhalinyaro baa tihiin madadaalada iska sameeya, dad badani way idinku yaqaanin Stockholm ama Sweden ama Europe ama dee meelo kala duwan oo dunida laydinka dhegeysta. sidee baa u aragteen kelmadii yarayd ee kaftanka ahayd ee meelaha dhexdaad ee shabakadaha isgaadhsiinta dhex maraysay inay ummado dhan oo intaa la egay gaari karto oo dadka qaarkoodna siyaabo khaldan ay usoo fidin karaan iyagoo kusii ladhay muuqaalo khaldan? sax waaye, waxaan waxa waaye waxa ka malaysanin mafahanti wax yani shacbaha inay taas waa ku qaldanay dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed, maamooyinka waayeelada casisaa ka dalbanayna. waan gartay. intii ka xumaatay intii ka naxdayba. waan gartay. anagana dacwo waxaa u haysanaa intii xumaatada sheegtay oo dhahday waxbaan soo duugnay iyo waxbaa yani qarxay iyo waxbaa dhintay, markaas anagana cuqdada u qabnaa mafahanti. intii kelmadiina leexisay leexisay cuqdada u qabnaa, intii kalena casisaa ka dalbanaynaa. waan gartay. markaad eegtid kelmaddii waatan haatan dee dadkii way saamaysay, maxaad oran lahayd tusaale ahaan oo kale markaan kelmadda ugu dambeeya ku siiyo xalkuu noqon karaa tusaale ahaan maxaad u sheegi lahayd? horta qof walba ani waxaa kula tali lahaa horta qof walba waqtigiisu gaaraya mafahanti. haye ma dhaafa qof walba marka taas hadduu aamino telefon walaa hadduu waqtigaaga wax ka dhiman yahay telefon aa sheegayay maxaa la dhahay adiga wax walba kugu dhaco ma dhimanaysa mafahanti. haye marka qof walba ilaahay ha ku xirnaado, ilaahay ha aamino. marka intaasaa ku gabagabayna. majaajilaystena waa tahay dhinaca heesaana waad ku tuurtuurataa. inan adiga laftigaaga inan baa kaa maqan oo ilaa 100 meel bay kaa jirtaa. dumartaan ka doortaan iga durugtay 100 may dodow maxaan ka yeelaa ilaahay soo aruuriya. inanta telefoon ma loo diray? inanta waa qasab waa wixii bulshada ay qabto way la qabtaa mafahanti. haye miyaad ka baqeen in inanta laftigeeda telefoon loo diro oo lagaa dilo? wallahi taas waxaa waaye waa ka murgooda mafahanti. haye marka hadda may noqon alxamdulilah waa inooshaah. waay heestadaasaan kusii gabagabayn doonaa barnaamijkeenna. aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin. cabdi tahliil oo ku sugan Stockholm iyo weliba cabdinaasir oo isna ku sugan, cabdinaasir Sola oo ku sugan isna dalka Britain gaar ahaan London, iyo hibaaq gurmuto iyana ku sugan magaalada Hargeysa. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka soo diyaariyay nalana soo codsiinayay. halkuu idinkaga imaanayeen waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka. intaan dib mar kale u kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. miduu daawo leeyahay yartuu duni ka caashaqay annaa cishqiga igu daa jacayl waa ninuu dilay inuu dooni sabagbaday miduu abiib ku soo degin miduu daawo leeyahay yartuu duni ka caashaqay annaa cishqiga igu daa dumartaan ka doortaan iga durugtay 100 may dumartaan ka doortaan iga durugtay 100 may dodow maxaan ka yeelaa dumartaan ka doortaan
iga turugtay boqol may dumartaan ka doortay iga turugtay boqol may dadow maxaa